السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان داوداشين ku xiran channelkeena arrimaha dunida YouTube waxaan saakay toole falanqeyn doonaa ciyaarihii ugu dambeeyay shalay toole iyo xalay toole laga ciyaaray tartamada kala duwan ee caalamka hadda ka qabsoomaya sida tartanka Copa America sidoo kale tartanka World Cup Women sidoo kale tartanka caanka ah ee waa Afcon African Cup of Nations oo maanteeda la furi doona caawa 5 saac oo habeenimo furmi doona tartankaas wuxuuna waxaan lagu qaban doonaa dalka Egypt ciyaarihii xalay toole la ciyaaray waxaa kamid ah in World Cup Women Group F Sweden ay gabi ahaanba khasaare kala kulmeen US ciyaar labi or ku dhamaatay ciyaartaasna US ay guuleysteen wareegga xiga tartanka gudbay sidoo kale jil waxay ka adkaadeen Thailand ciyaar labi or ku dhamaatay shalay toole galab ciyaarihii la ciyaaray waa xalay toole waa hal saac ciyaarihii la ciyaaray waxaa kamid ah World Cup Women Group ciyaaraha ka tirsanada koob hablaha ah ee koobadunka Cameroon waxay laba gool New Zealand ka adkaadeen ciyaartaasna waxay ciyaarna dareen leh oo adduunka dhan ay wadaaminaysa Cameroon waxay soo gudbeen wareeg xiga Netherlands salato waa xalay toole hal saac waxay khasaare weyn ku dhafteen xulka qaranka Canada ciyaar laba gool ku dhamaatay Copa America maxaa la ciyaaray Copa America xalay toole waa la ciyaaray ciyaar u dhaxaysa Uruguay iyo Japan ciyaartan waxay ku soo laatay laba gool ciyaarta ku soo laatay 32 daqiiqo hoggaanka xulka qaranka Uruguay waxa uu dhigay Luis Suarez oo penalty lii ciyaartan hal ka dhigay waxaana hore gool ku dhaliyay Coutinho oo ciyaartan laba gool lii 25 daqiiqo gool ku dhaliyay xaqto bareeyay Luis Suarez 32 daqiiqo ciyaarta waxaa la yahay mar la beddelay 19 daqiiqo Coutinho oo ah superstar ka cusub xulka qaranka Japan Jose Maria Gimenez superstar badacay ciyaarta laba u beddelay 66 daqiiqo markuu caawin ka helay Nicolas Lodero ciyaartan waxaa garsoor ka ah garsoor caanka Andres Rogers oo u dalka Colombia waxaana lagu ciyaaray garoonka Arena de Colombia oo ku yaala dalka Brazil oo sanada martigelinaya koobka markana aanu soo gudbin ciyaaraha koobka Afcon oo sanadkan ay martigelinayso xulka qaranka Egypt ciyaar weyn ayaa caawa jirta oo dhaxaysa xulka qaranka Egypt Zimbabwe waana ciyaarta daafurka lagu daafuri doono koobka Afcon 2019 ciyaartan caawa 5 saac soo dhici doonta waxaan ognahay in top scorerka goolyaha ugu sareeya tartankan Afcon uu yahay superstarka ee kooxda Barcelona iyo Chelsea iyo Inter Milan Samuel Eto'o sidoo kale xulka qaranka Cameroon Soomaali shaxaa macquulka labada dhinac Zimbabwe iyo sidoo kale Egypt isku soo kala dhigi karaan waa tababaraha xulka qaranka Egypt Javier Aguirre ciyaarta wuxuu keeni karaa goolaha Shinawi Mohamedi Hagazi Ayman Ashraf Alaha Eldin Trezeguet Tarek Ahmed Mohamed Salah Mohamed Elneny Amar Warda iyo Mohamed Hussein digiisa xulka qaranka Zimbabwe tobro Sunday Zamba wuxuu soo safan doonaa goolaha Sibanda Daregwa Flori Lunga Hadebe Midimo Kururu Nakamba Biliat Musona iyo Mushagmi waa shaxda macquulka ee labada nacaba ku soo gali doonaan kulanka weyn rasmi natiijooyinka ciyaartaas labada nacay kala helaan halkaan kala socon doonta waa Umar Abdul Aziz oo idin ahna